subax wanaagsan dhageystayaal ama daawadayaal ku soo dhawaada waa page-ka radio kulmiye waxaan ku sugannahay halka saakay la filayay inuu banaabaxa ka dhaco hase yeeshee waxaa guud ahaanba goobtii banaabaxa uu ka dhacayay la wareegay ciidamada dawladda oo waxaa la xiray wadooyinkii dhammaan soo gali lahaa taalada daljirka Dahsoon xalay goobtaasi waxaa ka dhacay dagaal aad u xoogan oo u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo ciidamo taabacsan musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya jawiga xaaladda saake magaalada aad ayuu u degan yahay inkastoo wadooyinka caasimadda ay xiran yihiin oo guud ahaanba la xiray wadooyinkii soo gali lahaa taalada daljirka Dahsoon oo goobtii uu ka dhici lahaa banaabaxa sida u jeedaan wadooyinka waxaa ku go'an gawaarida dabaabaadka ciidamada dawladda ay leeyihiin halkaasi ay u jeedaan waxaa ka muuqda gawaari aad u tiro badan way adag tahay in goobtaasi la gaaro oo ciidamada dawladda ayaa dadka ka celinaya waxaana ku suganahay markaasi inta u dhaxaysa taalada daljirka Dahsoon iyo sidoo kale isgoyska Jubba dad aad u tiro badan oo guryahooda ka soo baxay ayaa goobtan ku sugan oo xaaladda jawiga saaki qiimeynaya dadkan inta badan xalay waxay dhageysanayaan ama ay maqlayeen dhawaqa rasaasta xaaladda saakin waxay soo toosay marka iyadoo yar degan waxaana marka muuqata in ay qiimeynayaan jawiga dadkan waa dad xaafadahoodii ka soo baxay saaki waxaana markaasi iskugu soo baxeen bartamaha isgoyska kala qeybiya degmooyinka Boondheer iyo Shangaani magaalada Muqdisho xalay goobtaani oo hadda taalada daljirka Dahsoon iyo hoteelada ay degan yihiin madowga musharaxiinta dagaal aad u qaraar ayaa ka dhacay oo u dhaxeeya ciidamada taabacsan musharaxiinta iyo sidoo kale kuwa dawladda ilaa iyo hadda lama qiyaas karo khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi inkastoo wararka qaar ay sheegayaan labada dhinacba in khasaaro uu ka dhashay se yeeshee khasaaraha rasmiga ah lama hayo dagaalkaasi xalay ka dhacay oo ka dhashay taalada daljirka Dahsoon madowga musharaxiinta oo wariyaasha la hadlay xalay waxay sheegeen in la soo weeraray oo weerar lagu soo qaaday hoteelkii ay degnaayeen ciidamada dawladda amarkaasna uu bixiyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhanka kale wasaaradda amniga Soomaaliya oo ka hadashay weerarkaasi waxay sheegeen in maleeshiyaad hubeysan oo la ogeyn halka ay ka amar qaataan ama aan la ogeyn halka ay ka tirsan ay weerar ku soo qaadeen bara control ciidamada dawladda ay ka sugaan amniga caasimadda hase yeeshee ay iska difaaceen ciidamada dawladda oo ay kala ceeriyeen wasiirka wasaaradda amniga oo qoraal kooban soo saaray xalay saqdi dhexe waxa uu sheegay in markaasi ciidamada dawladda ay iska difaaceen weerarkii ay soo qaadeen maleeshiyaad hubeysan sida uu hadalka u dhigay oo markaasi bara control ciidamada amniga ay ku leeyihiin sida muuqata saaki jawiga magaalada waa uu degan yahay hase yeeshee waxaa aad u xiran ama guud ahaanba la xiray goobihii ay iclaamiyeen madowga musharaxiinta oo banaabaxyada ay ka dhici lahaayeen gawaarida dagaalka ee dabaabaadka loo yaqaana oo ay dawladda leedahay ayaa lagu jaray guud ahaanba wadooyinka magaalada Muqdisho ciidamo aad u tiro badan ayaad arkaysaa sidoo kale xalay waxaa marka warbaahinta mar saacadu ay ahayd labada saac bar taalada daljirka Dahsoon kula hadlay Jarnaal Indhacade oo uu sheegay in markaasi uu sugayo amniga musharaxiinta hase yeeshee arrintaasi waxaa ka dambeeyay dagaal aad u qaraar oo ka dhacay taalada daljirka Dahsoon waxaan u suurto gashay ciidamada dawladda in guud ahaanba ay la wareegaan goobihii la iclaamiyay oo banaabaxa uu ka dhici lahaa waxaad arkaysaa kaliya in markaasi ciidamada dawladda ay ku sugan yihiin xaafadaha degmooyinka Shangaani Boondheer Cabdicasiis guud ahaanba inta markaasi